qofka waxa bini aadanka qiimaha uu yeelay waa akhlaaqda wanaagsan lidalika nabigeena sallallahu alayhi wasallam mucjizaadkii nabi maxamed la siiyey mucjizada ugu weyn waxay ahayd waa quraanka akhlaaqda nabi maxamedna quraan bay ahayd Aisha radiyallahu anha markii nabiga la weydiiyay lagu yiri Aisha nabiga dabeecadiisa looga waran waxay tiri nabiga dabeecadiisa waxay ahayd quraan bay ahayd al-quraan kana khuluquhu al-quraan macna al-quraan waa maxay quraanka oo socdo nabigu ahaa wuxuu quraanku faray uu nabigu la yimiday wuxuu quraanku ka reebay uu ka reeb ka ayuu nabigu ka hadhay wuxuu quraanku xalilay uu nabigu xalaaleeyay wuxuu quraanku xarimay nabigu xaraam buu arkay wuxuu quraanku raali ka yahay raali buu ka noqday wixii quraanka shariicadu ay diiday nabigu waa diiday quraan socdo nabigu ahaa quraanku sabrku nagu dhiiri galiyay sabrka nabi maxamed wuxuu ahaa dimma quraanku shujaacadu nagu dhiiri galiyay shujaac buu ahaa nabigu geesi ma cabsooda quraanku wuxuu nagu dhiiri galiyay qofka muuminka inuu ahaado qof layina oo dabacsan nabi maxamed cid ka dabacsan adduunka ma soo marin quraanku wuxuu nagu dhiiri galiyay zuhd qofka bini aadanka muslimka inaysan adduunyadu qalbiga aysan ka gelin bal adduunyada qofku gacanta ku haysto nabiguna zaahid buu ahaa quraanku wuxuu nagu dhiiri galiyay naxariis badni inuu qofka muslimku muujiyo nabi maxamed cid ka naxariis badan adduunka ma soo marin quraanku cadaalad buu kugu dhiiri galiyay nabi maxamed cadaaladu xaqiisa ka timiday في غزوة أحد الغزوات غزوات كمدة أي نبي حوله وصوق هذا ومضى وقيبيي أقرع بن حابس من الأورنجري أي أمرك قسمة دي سلوك هنا يقولي والله قسمة لقوا مع عدالة فلن إلهي درتنا لو قام جريب هذه القسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله ابن مسعود بن مغلي مركا هذا القص هذا الكبر عبد الله بن مسعود قال له النبي وشيخ عليه الصلاه والسلام النبي وجهي سبب الدين والنبي محمد بلغوا له ياهي قسمدن اد خولها نوغو قيبسي كما عدالة سميني الهي درتي وجهي سن وكما جيت هذا القص مركا معنا مركا النبي هو ها بقرنا ما هي برزداننا ما هي وزيرنا ما هي جننا ما هي أباندولنا ما هي هو نبي هذا مدح نقول له إن المدح عدي هذا الكلام اللي يقول هذا كل ذا بورنا سلوا قاس هذا حراية بلا أدب وأدب تصوبر لكن النبي ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكمر النبي الله شيء ابن مسعود باو شيء ولي بنا وبدل من النبي وجيسو لكن النبي هو مسؤول فكره وحيري إن لم يعدل الله ورسوله إذن فمن يعدل والنبي يقول حتى إلهي الرسول قيسوا أي عدالة سمين إياكو أياكلوا عدالة سمين مركب النبي وآمس دان إلهي النبي وعدالة إياكو أي سنكيني إياكلوا عدالة كين يقول لكن النبي ولالكي موسى فإنت إيكا بدن بيقوم كيسوا أي دبان أو صبرين maalin kale isagoo suuqa Madiina dhex socda ayaa nin reer baadiyo Arabiya nabiga gadaal xagga dambe kaga yimiday waxa uu nabigu suutay markaa go burda najraaniya oo reer najraan ay samaysan jireen oo suufa oo dhinacyadana aad u adag ayuu nabigu degta ku sitay ninkii Arabiga intuu nabiga xagga dambe kaga yimiday oo go'ii nabiga ku soo gundhiyay halkaana nabiga maaragtaan go'ii ba ku sameeyay nabiga calaamad ilaa inuu casaadeen markaa buu ya Muhammad مر لي ما لله الذي عندك حولها إلهي وليه إلهي أكت هذا ودقي إيه أمر أصحاب هذا حولها وحلي يصير أنت قفوا نيك النبي قوقيس صلى الله عليه وسلم مرضي النبي هم قريقا كقبتي وكو يا محمد بوي يا رسول الله حتى مولا يا نبي الله مولا قرآن كدم بدرك سامر كذاك إله كريم كي عظيم كي الرحمن كي الرحيم كي جعله نبي وجعل هي قدرين إلهي نبي محمد قدرين أيوه
قرآنك كمي من لفظ يا واسو حرف النداء صوما يا محمد قرآنك كمي النبي آدم عليه السلام قرآنك ويكتب يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا نوح إنه ليس من أهلك لكن قرآنك يا محمد بالكسر وصار كما إيمان إلهي محول يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلهك عظيم كي كريم كي عزيز كي جبار كي أيا حرمة النبي سأوها يا رسول كيسا محمد عليه الصلاة والسلام يا ما استعمال إلهي مركو النبي كيسا الله يوم وحي إلهي استعمال كن يدو إلهي استعمال يا أيها النبي كي أنظرت يوم يا أيها الرسول كي أنقو أنظرت يوم يا أيها المدثر كان ازدد يوم يا أيها المزمل كان مرر اسكدوا ضوبا يوم أعرابي قلنا وحو استعمال يا محمد ومالك النحص وما مر لي أمر إيسي بولي حولها أن أدوك ملهيدة إلهي أكت هذا أودقي إلا يسينا أمر سيبوكي مرقاب النبي قلتو قصلي بقولي ورسيه بي لما بقولوا هلادو قيلا لسي يا سلام وحب حيك رب الشيء بل المسؤولة ما أنت واحد كتر هذا ورني والعقت أنا يسد أدو ملهيدة والعقت ودنك وحنا قسي كده واحد قال والأركي حاج يجيبوا فضيحة هذا الله ورسول ما قلتوا كل ذا لماذا؟ لأن النبي صفات النبوة وقوني صفات كبني آدم كلنا وقوني النبي عليه الصلاة والسلام كون كان وحوي مدي طريقة ضدفة أي كنا بدقل يعني اللي قد يلها إنه ما توجه النبي على كوي طريق النبي وجاح يعني ولا طريقة صومر والديبان إنسان سي يقول لما بقولوا هلا ذو قيل لسي أكتيس ما عرونين ما أرجو سنين سوق مدينة مالك اللي سقوا دح سعودة وأبو بكر يا عمر الصحابة هريرها كم ريان أيا نين يهودية أيا النبي عليه الصلاة والسلام سوق قالوا هل كان دم يسوون قبصدوا كل دقيقة النبي قال مركز يا بني عبد المطلب يا محمد آل عبد المطلب أنكم إن بالله ما نلنا ولين وانا قنا دبي عدي النيل وحولها دتك قالتان بسوع لسانه حولها قبولها يسيبوا كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا مركي مسافة قلك كلام حلال ورقابوا يا رسول الله قال كان يهودي قال يقول فسحنا قرطة كل لي ورقابوا النبي يقول مي يا عمر ما يصدق الله هذا النبي مرة لقوا هل كانوا النبي قاعد كقبتك كاسنا إنها عصابة يا عمر أنا أسأقوا بس هذا سكت دون أيا كذا بحنين بوكين إن هذا سجنا كتر هذا النبي قد دين واتقول هذا حي لكن دين كي مالما أيا كانوا صدق مالما كهذا بالله كي أكادين كتر هذا أيا كذا حبوني أنا كان هذا كتر هذا النبي الله ده حوله هذا كذا وكذا يسكت يا عمر كحيو سديت الساعة تمرة أيا إنك أنا كان محدود يقول لي هي سديت كي ساعة تمرة هلا السيوم لا ما تصدق قدر بوكيل وأنت تفهم حسين لا سيفته قلقه وقلب حيموت لا ما تنقى دارات كان نيجي يهودكم من مقلايو مركو النبي عليه الصلاة والسلام كلا دقاقين وعمر نكي كحيي وبيت المال كي لا يمدي أيا سديت كي سي صعب الله قبو حيا مرضي سي مركي الله بحيا هل كان الله دقي أيو عمر لا ما تنقى قدري إلى أنك يهودي يرادو يا عمر أنا لا ما تنقى مل هي قدا نبي قال يقول أمرنا قصيو وما حد يسين سببت ومحي وأنتي أن كان نحيي يعني وأنتي أن سيفت الله صباح يعني كان النبي يقول أبل مركز يا عمر
زيد بن سعنة ما مقصنك ليلى زيد بن سعنة ها مركز الحبر نكي عالمك يهودين يهودا إن لدقن شيخوغي عالمكوغي مياتهي ها نكاسانا هي وهجاج أديكو عالمة وأمدن أن لدقن مالك تانا يهودا دقن دقاك المدينة عالمكوغي التوراة هيا نبي لأنه إلهي صدري وولي بكتبتي إنه أي شيء يسو إن تسوق مقالة المدينة كل بحد الشاه أيضا بلنكينا صدح مع المضايكات ما انتهي محاكو أجبري بقول إيشك وعلي صفات النبي يدو أي لهايان ودن إيه كتبت أنكو أرقنا وان كأركن محمد إلا الله بأمبارا كأركن لابد أنا مصر الظاهرين إلا النبي قعنت ولولي ما دمه يعني مرقى الصفات بالنبي كبه حسن يقول وصفات كي عددي سيد دلقات كيسا وحق غالبة دلقات كيسا سرية جاهلينتو حقي سمركي كو حق قدبانا وحكى النبي وقام الزيادان إلا دلقات ما النبي وقام الزيادان مرقى الصفات كاسا إيقام مغنى صفات كان صدن بلغو وقام كريه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حولها يقاسوا لنا كل بيت المالكة هانتي بدنا والله هي هانتي دانا وحانو بحيه والمسلمين تلغو صدق الله وإنك لعلى خلق عظيم خلق أخلاق وين عليه الصلاة والسلام رئيس تي منافقين عبد الله بن أبي بن سلول ودتك مسلمين تقدح سعودة إنه مسلمين تنية جبيو ومنافق نمدي سنة أي عضاتي في غزوة الأحزاب يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ما داموا سدا يري ولي من نكاسه أيا إن كي أدلي والصحابة رسولك الرجي وقيمة بدنا كمدا أيا النبي قوي مدوي يا رسول الله أباها منافق نمدي سي عبداتي وي عبداتي ده القرآن كيف عدين وفضح هذول خلاص القرآن كيف بيفضح هذول وحي كيف كوسو دقي انتو نينكلا او مسلمه aabaha u dili laha ninka aabaha dilay aniguna hadhow toolaytoon cadaawad u qaado aan dili lahaayoon sida naar ku gali laha aabaha maadaama munaafiqnimadiisi ay cabdaatay oo ra'iisul munaafiqiin uu yahay kurkiisa ana ka soo goyna ku keeniye igu fasaxbu kay markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam ku yiri may kugu fasix maayo aabaha inaad soo dishay way haddaan aabaha waa runta waa munaafiqnimadiisii caddaatay haddaan kugu fasaxo ood soo disho maaha la odhan maayo munaafiq bay dileene waxay ku sheekaysanayaan cadowgeennu muxamed asxaabtiisii buu isku dhifto aabbiya inankiisii baa isdilayo isku laayay meesha dhexdeeda markaa sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doonee adigana waa aabaha ya suxbadiisa wanaajiyo u samafal maadaama uu inala socdo oo magaalada Madiina inala joogo sharkiisa ilaahay baa naga filane adiguna aabaha u samafal buu kay halka maxaad arkaysaa nabigu ummadda uu isku waday isku dhaqaale kuma wadin akhlaaq buu ummadiisa ku waday nabigu akhlaaq قائد كشرف بدن كقيمة بدن كنحريس بدن كهوجامي في عن كعدالة في عن كالضلقات بدن كدبرين بدن بس صومرين أدون كوجو ما نصومر دون صلاة وقع جري مركب النبي يقول هذا هنا صلاة دارستان دمعة لكن وحان حسوس دابل الماء يري أويا أوهنتي سهويدي وقلاش إذا كنت كنيسة كل بيا مركب صلاة خفيفة يا أبو رسول عجيب صلاة التراويح الله ما هبين بجماعة تجيال ليلي هبين قصة حالها وكبوا وحود داية تراويح إنه هبين قصة حاله تجي ومدى وحو نبي قود داية يبان ليلي إلا غفر دي لأمد ديسا دانا ما ركتانا أمدو أي كري ويدون لغو عقوبة تاسو كبا غير رسول كيه نحريس بدنا وصل لي رسول كيه مساجد بو سوق له هبان هذا كمدا قيل الدمر كو اي كتو كذا وسو موقد مسكين رغونا انت نوري لهايين وبدكنا دخدي لهايين
haweenkuna ma aragtaan ay way safafka dambe xagga dambe ku tukanay waa u muuqanay majmaca markaa buu arkay xadhig laba udub dhexdooda ku xidhan markaa buu xadhiggii arkay xadhiggan ayaa xidhay oo maxaa meesha ku xidhay zaynaba xidhato maxay u xidhatay buu nabigu yidhi salaata leylkii habeenkii markay ku daashay qabsataana laga yidhi markaa buu nabigu xadhiggii uu gooyey wuxuu yidhi camalka aad samaynaysaan ee khayrka malaa'igta ajarka inii qoraysa kama daalayso ilaa ininkoo camalka qabashadiisa ka daala mooyaan habeenkaad nashaadka tihiinna buu nabigu yidhi tukadoo cibaadaysta habeenkaad daalantiina iska seexda buu rasuulku yidhi waa salaada sunnaha naxariis badan sala allahu calayh wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin xasan iyo xuseen buu maalin la ciyaarayey markaasay nin reer baadiyaa nabigu yimid oo acraabiya oo yidhi ciyaalkaada ma dhunkataa ha dhunka waayo ubadkaygii wallahi inu 10 wiil baan dhalo weli midna kama dhunkan buu yidhi markaa buu nabigu yidhi dee maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaadu naxariistii ka siiyo man laa yarxam laa yurxam kaan naxariisan looma naxariista buu rasuulku haddaad ilmahaaga u naxariisan weyday adna ilaahay ku naxariisan maayo meesha naxariista laga soo bilaabaana waa aqalka meesha dhaqanka wanaagsan la tusaa ee in la tuso u xaqlana waa reerkaagii ogow akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa waina khiyaarukum khiyaarukum liahlii wa ana khayrukum liahlii buu rasuulku kuwiina iniigu iimaanka fiican ee iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu uu dhammaystirmay buu nebigu yidhi waa kuwa dabeecadda wanaagsanna buu rasuulku yidhi ma odhan nebigu waa kuwa salaadda wanaagsan leh ma odhan waa kuwa soonka badan leh ma odhan waa kuwa aqoonta badan leh ma odhan waa kuwa wacdiga badan leh waxa uu nebigu yidhi kuwiina iniigu iimaanka kaamil kale ee iimaankoogu dhammaystirmay waa kuwa iniigu dabeecadda wanaagsan waxaa kaloo iniigu khayr badan buu nebigu yidhi ragga reerahooga u khayr badan anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi inaad khayr leedahay akhlaaq wanaagsan leedahay dulqaad badan aad leedahay naxariis aad leedahay dhibrin aad leedahay cidda u horraysa ka markhaati kacaysa waa inay noqdo reerkaaga afarta oday ee miskiidkii aad isku barateen inay dabeecad wanaag kuu sheegaan waa suuragal laakiin islaanta 30 sano aad la noolay inay tidhahdaan ninkaygu waa weli ilaahay waa nin dabeecad wanaagsan xaqayagii uu ilaaliyey xaqa ubadkana uu ilaaliyaa xaqa jaarka uu ilaaliyaa xaqa qaraabada uu ilaaliyaa ma sahlan laakiin jamaacadda miskiidka aad isku taqaanaan inay kugu sheegaan ninkaasi waa nin cibaado badan waa nin isniinta iyo khamiista sooma waa nin miskiidka nooga soo horreeya waa nin masaakiinta siiya waa nin ummaddu ay ka nabad gashay inay ku yidhaahdaan way fududahay waayo iyaka maalintii saacad baad wada joogtaan laakiin iyaa ku yaqaana dabeecaddaada dhabta islaanta 30 sano aqalka aad ku wada noolaydeen taasaa dabeecaddaada dhulkunta taqaan bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra